أسدك عدكينا ورا مركن بتلان هي البيربتا وحي تبي سهليه مراقبة بابيو وكامي واسدي عدكينا ورا مركن أسدك عدكينا ورا مركن هوكانكي ويا باري هاليي ويا همودك هالدوركي ويا عين هدفتي مواو بقر هوريكي سنة ونقا هالقنا صول بوكلي هوكامي وأسدك عدكينا ورا مركن وحوها بيجيسو يهي هشيسي هو مديمو حياني هو تسمع يرالكونا وأحساب الروحي وهالعود وقامية وأسدك عدكينا ورا مركن هلاقو مركو كدعي كابوها جيرين على نفتي سدلكو هوري وكامي واسدي عدكينا ورا مركن ورادada ubadku jaqo aradu maqabo musuqa hantina kama rabo biyiga hogaamiye waa asadig codkiina ura markan halaagu markuu ka dhacay kabuuha jirin arlada naftiisa dalku huray hogaamiye waasade codkiina hura markan waraadada ubadku jaqo aradu maqabo musuqa hantina kama rabo biyiga hogaamiye waa asadig codkiina ura markan hogaankii weeye bari halyey weeye hamudug haldoorkii weeye cayn hadaaftimu waa u boqor hoygiisuna waa noga halkana sool buu geli hogaamiye waa asade codkii marka hore waxaan salaamaynaa aniga iyo wafdiga la socdaba
reer gaalkacyood ay ugu horreeyaan ciidamada odayaasha ganacsatada dhallinyarada ardayda haweenka kulligiin waxaan idinku salaamaynaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa farxad weyn ii ah maantay inaan taaganahay meesha la yidhaahdo meeshaan magaceeda yaa yaqaana halkaa maxaa la odhan jiray kuraasyo badan baa la odhan jiray kuraasyo badan aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan taaganahay kuraasyo badan halkaasaan fadhin jiray waa magaaladeydii waa aqaanaa meeshaan waxaan la soo koobi karin farxaddaan dareemayo waa magaaladeydii aad baa u mahadsan tihiin waxaan idila nimid gaalkacyooy barnaamij siyaasadeed waad og tihiin inaan ahaa ciidan inaan ka shaqayn jiray amniga weliba kan gaalkacyood si fiican inaan uga shaqayn jiray labada maamul puntland iyo galmudug nabada inay ka shaqeeyaan inaan ka shaqayn jiray waa og tihiin maanta waxaan idila nimid barnaamijkeeda siyaasadeed oo igu horrayso nabadgelyada gaalkacyo waxaan ballan qaadaynaa haddaanu xilku ku guulaysanno gaalkacyo dambe inaan laga qaxin oo arday dambe iyagoo iskuulkooda dhiganaya ama ganacsato dukaamada u furan tahay maalinta mar dambaysan magaalada ka qaxinoo nabad ku noolaadaan insha allah intaasaa ballan qaadaynaa gaalkacyo waa hoygii suugaanta soomaaliyeed waa hoygii afka soomaaliyeed gaalkacyo waa bartamihii soomaaliya waa meesha asalka u ah soomaalida waxtarka leh waa ogtihiin oo inta qof oo gaalkacyo ka soo baxday oo wax noqotay soomaaliya wax ka noqotay adduunkana wax ka noqotay aniguna kuwaasaan ku jiraa insha allah inaan xilka ku guulaysto inaan xilku ku guulaysto idinkoo ay garab taagan waxba noqon mayso insha allah way dhici doontaa hadduu ilaah yidhaahdo waxaanu rabnaa insha allah inaanu ka shaqayno difaaca deegaankeenna inaan la dagaalanno argagixisada inaan al-shabaab iyo daacish iyo soomaalidiidba waddanka ka saarno soo uguma raacsanidin waa cadowga koowaad oo aan leenahay waxaan u baahannahay waa nabad waxaan u baahannahay waa nolol waxaynan ka doonaynaa haddaan xilka ku guulaysannabi haddii kaleba mar walba inaan u taagannahay difaaca gaalkacyood waa waajib oo laga difaaco shabaab magaalada cidna kuma noola dadkiiba wanaagsanaa waa ka carareen waanu ognahay ma waxaad doonaysaan cabsi inaad ku noolaataan gaalkacyo cabsi miyaad doonaysaa fulaynimo laguma xanturee mudugga waxaan moodaa hadda in la baqayo waxaan rajaynayaa insha allah haddaan xilku ku guulaysto baqdintaa inay baaba'do waxaan kaloo idiin wadnay dowladnimo dhab ah inaan ka hirgelinno gobolka mudug gaar ahaan gaalkacyo oo baahihii asaasiga ahaa u baahneedeen sida waxbarashada caafimaadka biyaha korontada dhammaan inaan ka hirgelinno gaalkacyo iyadoo si sinaana oo cadaalad ku salaysan tahay waxaan kaloo ballan qaadaynaa codkiinna inuu shaqeeyo oo idinku aad dadka doorataan maanta codkiinna ma shaqaynayo 66 baa wax dooranaya laakiin waxaan ballan qaadaynaa insha allah inaad wax doorataan idinka haddii aanu xilka ku guulaysanno waxaanu ballan qaadaynaa waxyaalaha insha allah kobaca dhaqaale ee ka socda gobolka mudug inaan hirgelinno kuwo kalena keenno hadduu ilaah yidhaahdo mashaariicda gobolka ka socda inaan hirgelinno kuwo kaloo ziyaado ah oo hadda idinku inoogeyn inaan idiin keenno taasna waa ballan qaadaynaa insha allah waxaan si dhab ah u ballan qaadaynaa dhallinyarada inay hesho haddaanu ku guulaysanno dowladda aan doonayno
qaybta ugu muhiimsan ee ka qaadato insha allah waa ballanqaad. sidoo kale haweenka hooyooyinka gaalkacyo way ka duwan tahay deegaanada kale puntland waxay leedahay hooyooyin caan ku ah maslaxadda nabadda iyo horumarkaba. insha allah xaqoodana way heli doonaan. waxaan kaloo ballan qaadaynaa inaan la dagaalanno musuq maasuqa. waa ballan musuq maasuq waa cadowga koowaad aanu leenahay gaalkacyo iyo puntlandba guud ahaan wixii ka dhaqaaqi weyday waxaa kow ka ah musuq maasuq. waanu la dagaalamaynaa dowladnimo dhab ah baa hirgelinaynaa ma ogolaan doono in dowladda hantideeda la iska haysto insha allah. waxaan doonaynaa in dowladdu ay yeelato awood dad ah si ay xuquuqdiina idinkuna u heshaan hadduu ilaah yidhaahdo. waxaan ballan qaadaynaa haddaanu ku guulaysanno dowladdu inay noqoto mid idinka idiin adeegto o idiin shaqaysa. ballan weeye insha allah. waxaan idinka codsanaynaa nabadda gaalkacyo in laga shaqeeyo mar walba. nabaddaa wax ku nahay daras wanaaggaa wax ku nahay waa muhiim inaad tixgelisaan nabadda sababtoo soomaalidu waxay tirahaa nabad baa naaslu nuugo leh. waa inaanu ka shaqaynaa nabadda gaalkacyo. mar walba waxaan u taaganahay ka shaqaynta nabadda gaalkacyo iyo horumarkeeda. waxaan rajaynayaa idinkuna inaad sidaas oo kale ugu taagan tihiin. aad iyo aad baa u mahadsan tihiin. waxaan la soo koobi karin farxadda iyo reereynta aan ka dareemayno qalbaddeenna aniga iyo wafdiga la socdaba aad baan idinkaga mahad celinaynaa. gaalkacyo waa magaaladeedii. gaalkacyo ha noolaato. gaalkacyo ha noolaato. gaalkacyo ha noolaato. mudug ha noolaato. mudug ha noolaato. mudug ha noolaato. ilaahay waxaan ka baryaynaa raxmad khayr leh inuu noo di'iyo colaaddan inaga joojiyo khayrna noo keena. aad iyo aad baa u mahadsantihiin.